kulanti wacan daawadayaal halkani waa janalkeena halbeega wararka qodobada xilligan aan idiin hayno ama barnaamijkeenan aanu ku faaqidi doono waxa uu noqonayaa kulan goordhow ka furmay madaxtooyada qaranka kaasi oo u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka. kulankani waxaan goobjoog ahayn oo madasha madaxtooyada ka maqan Saciid Cabdullaahi Dani kaasi oo habka fogaan aragga ama aaladda zoom-ka ah uga qayb galaya. sidoo kale waxaa shirkan ka maqan guddoonka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. sababtu maxay tahay faahfaahinta ayaad ku daawan doontaan, balse inta aanan faahfaahinta guda gelin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe inoo saartaan channelkeena halbeega wararka, sidoo kalena muuqaalka aad share gareysaan. وهاجاك هدي إنه كبلا إنه جوردو وحارونتا مدحتوية قرن كاي مقالة مقدشة فيلا الصومالية كفرمي شروع دحية مدحدة دولة فدرال كاهي الصومالية يقار كمدة هجان كدولة قبلادية دلكا مالني مدي شلي إلا حلي فيتكي وحا مقدشة سوغاري قار كمدة مدحدة دولة قبلادية سيدا مدحوين ياشا قل مدوك هيرشابيل كونفور قلبات يا مدحوينها دولة قبلاد كجبلان. waxaa magaalada Muqdisho ka maqan oo aan shirkan ka qayb galaynin isla markaana madasha xaadir aan ku ahayn madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaasi oo warar soo baxaya ay sheegayaan inuu saluugsan yahay hanaanka uu wax u wada madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho xarunta madaxtooyada waxaa ka maqan oo aan goobjoog ahayn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka guddoonka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali kaasi oo hore xilkan u soo qabtay. dhawaan ayaa waxaa lagu wadaa in xarunta gobolka Banaadir ay ka dhacdo xil wareejinta guddoonka gobolka, waxaana gudoomiyaha xilka ka degaya ee Cumar Finish laga sugayaa in munaasabada xil wareejinta uu qabto. warar goor hore soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha qaranka uu qorsheeyay in kulankan gobolka Banaadir uu ku matalo gudoomiyaha magacaaban balse aan wili xafiiska la wareegin ee Madaale, waxaana arintaasi ka biyadiiday qaar ka mid ah hoggaanka dowlad goboleedyada dalka. shirkan ayaa sidoo kale waxaan goobjoog ahayn oo madasha ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, waxaana uu kaga qayb galayaa shirkani habka fogaan aragga ah ee aaladda zoom-ka. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hor furitaanka shirkan waxa uu safaro dhowr ah ku tagay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horeeyay kadib markii xafiiska uu la wareegay dowlad goboleedyada dalka waxa uu ka bilaabay magaalada Baydhabo, iyadoo warar soo baxay ay sheegayeen in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu aad u saluugsan yahay maadaama si dhow xiriir uu ugala dhaxeeyay hoggaankii hore ee Villa Soomaaliya. madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la rumaysan yahay in markii uu tagay Baydhabo uu wax badan ku qanciyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen kaasi oo la rumaysan yahay in markan xiriirkiisa Villa Soomaaliya uu soo hagaagayo. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu safar kale ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isagoo uu kulamo dhowr ah la qaatay hoggaanka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka. wixii xilliga ka dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu safar ku tagay magaalada Garowe isagoo uu kulamo dhowr ah la qaatay Saciid Cabdullaahi Dani. warar laga helay kulankii Saciid Dani iyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa ay sheegayeen in natiijo la'aan ay ku soo dhamaadeen dhammaan kulamadii foolka ah ee u dhaxeeyay labada mas'uul. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la rumaysan yahay in magacaabistii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uusan talo badan ka siinin siyaasiyiinta maamul goboleedyada. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sameeyay isbedel ku aadan hoggaanka saami qaybsiga xilka ra'iisul wasaaraha isagoo magacaabay beel cusub. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la rumaysan yahay inuu ka gadooday magacaabista ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kaasi oo uu doonayay in isaga la siiyo ama loo magacaabo qof ku hayb ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamadii Garowe kula qaatay Saciid Dani waxaa warar soo baxay ay sheegayeen inuu markaa ku qanciyay in loo magacaabo mid ka mid ah taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee dhawaan la filayo inuu magacaabo madaxweynaha. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka cudur daartay in lagu qanciyo xilka taliyaha booliska Soomaaliya kaasi oo madaxweynuhu qorsheeyay in loo magacaabo Bashiir Ameeriko oo isku hayb yihiin madaxweynaha Puntland. Bashiir Ameeriko ayaa iminka waxa uu yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. warar la helayo ayaana sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh qorsheeyay in taliyaha booliska loo magacaabo shakhsigaasi. marka aan u soo laabano shirka goordhow ka furmay madaxtooyada qaranka ayaa waxaa ku gadaaman warar dhowr ah, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in Saciid Dani uu yahay caqabada ugu horeysa ee shirkan ka hor imaan doonta maadaama uusan ugu horeynba ku qancin inuu yimaado magaalada Muqdisho isla markaana uu ka qayb galo shirka dhawaan uu iclaamiyay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
dhammaanba marka laga soo tago madaxweynaha Puntland madaxda kale ee dowlad goboleedyada dalka ayaa ku sugan Muqdisho waxaana ay si siman uga qayb galayaan shirka uu iclaamiyay madaxweynaha ee maanta ka furmay xarunta madaxtooyada qaranka. xasan sheekh maxamuud ayaa shir gudoominaya shirkan waxaana hareertiisa fadhiya Xamse Cabdi Barre oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sidoo kale kamid ah mas'uuliyiinta shirkan ka qayb galaya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa dhankiisa xaadir ah. waxaa sidoo kale goobjoog ah madashan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo warar soo baxay ay sheegayeen in khilaaf uu kala dhaxeeyo hoggaanka dalka ugu sareeya balse arintaasi ayaa waxa biyo qabow ku shubay aqbalaadii uu aqbalay Axmed Madoobe inuu yimaado magaalada Muqdisho. sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe oo maalinkii shalay ahayd kamid ahaa madaxdii Muqdisho soo gaaray ayaa kulankan goobjoog ah. shirkan ayaa inta uu socdo waxaa la filayaa in madaxdu ay ku gorfeeyaan arrimo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan amniga, wax ka qabashada abaaraha iyo sidoo kale ka tashiga isbeddelka cimilada iyo sidii si wada jir ah ay ugu shaqeyn lahaayeen madaxdani horumarka guud ee Soomaaliya. dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay si aad ah u dhaliilayaan maqnaanshaha Siciid Dani iyagoo sheegaya inuu noqon doono caqabada ugu weyn ee shirkan uu wajahayo isla markaana natiijo badan aan laga fili karin maadaama madaxweynaha Puntland uusan ku qancinba inuu yimaado magaalada Muqdisho. wixii warar ah ay ku soo kordha shirkan iyo wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamkaba halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa. hanaga ilowina inaad subscribe saartaan channelkeena halbeega wararka intaan dib u kulmayno nabadgelyo.